بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan u mahadnaqayaa bahda warbaahinta nagu soo booqtay maanta sabtiya xafiiska xisbiga wadani xarunta gobolka Awdal sida caadigaana axsaabta qaranku markasta oo ay doorashadu soo dhawaato shaqadooduna xawli bay sii gashaa ka xisbi ahaanna runtii labadii sanadood ee u dambeeyay ama intii xisbigu jirayba maana fadhiisan haddaan nahay xisbiga xarunta gobolka Awdal hadday haween tahay hadday dhalinyar tahay iyo haddii guddida kale ee heer degmiye heer gobol xisbigu leeyahay tahayba saad arkaysaan waxay hareer fadhiya garabkii haweenka iyo garabkii dhalinyarta xisbiga wadani oo maanta shirarkan ku wada lahayn ku wada qaadanay todobada cisho ee usbuuc ka koobayeen marka maalinta jimcaha laga reebo shaqadu si caadi ah ay u socotaa maalinta khamiista waxa kulma garabka haweenka guud ahaan gobol iyo degmaba maalinta arbacada waxa kulma garabka dhalinyarada sabtidana waxaan isku nimaadnaa sida maanta oo kale shir guud oo aanu garabadayada kala duwan oo dhan xisbigu ku kala warqaadano wixii usbuuca noo qabsoomay iyo wixii naga qabiyoobayba saad labada socotaan bahda warbaahinta kulli warkii isku keensaagana waxaan isku aragnaa inaanu nahay xisbiga wadani ee gobolka Awdal xafiiska kaliya hatee si joogto ah uga shaqeeya marka la barbar dhigo axsaabta kale ee qaranka ee u ciidiyo kulmiyada leh taasina runtii waxay ku tusaysaa sida uu wadani diyaarka ugu yahay uga go'an tahay mar walba inuu talada dalka runtii qabto iyo sida aanan har iyo habeenba u fadhiisanin waxaan u mahadnaqayaa garabada kala duwan ee xisbiga wadani hadday haweenka tahay iyo hadday dhalinyarta tahayba shaqada joogtada ah ee ay ka wadaan guud ahaan gobolka Awdal afartiisa degmana sidaan ka warqabo waan la xiriiraa maalin walba sabtiya afarta degmo Baki Seylac Luqaya iyo Booramo jooga runtii shaqadu si isku mid ah ay uga socotaa haba ku kala badnaato oo Booramo magaalo madaxda gobolka shaqada ugu badan iyo population ugu badan runtii halkan buu joogaa u yaala dadaalkana dhimayno inaan sii kordhino mooyaane sanadka doorashada ka hadhayna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan membershipka ugu badan ka diiwaan gelino guud ahaan gobolka oo reeri imika tirada way socotaa haweenku oo reeri waxay sameeyeen tiro koob ay ka wadaan guud ahaan degmada Boorama iyo nawaaxigeedaba ay soo ururinayaan garabka haweenka sidoo u dhan yahay sidii looga wada dhigi lahaa xisbiga wadani insha Allah taala dhalinyaraduna saasoo kale ayuu socotaa waxaana noo qorshaysan hadii Ilaahay qadaro toddobaadada soo socda inaanu sportigana kaalin muugle oo miisaan la ka qaadano oo agab ciyaareed aanu qaybino diriiska kooxaha ka dhisan guud ahaan magaalada Boorama dhiirina gelino dhalinyarada garabka dhalinyarada aan xoojino garabka haweenku waxaad moodaa inuu ka yara dheereeyay garabadii kale gobol ahaan oo garabka noogu aktifsan xagga shaqadiisa oo reeri xataa imika waxay samaystay sanduuqa horumarinta haweenka wadaniga gobolka Awdal la yiraahdo oo ay dhaqaale ku urursadaan way isku filaadeen runtii haweenku waan amaanaya dhalinyartuna saayis laga ka rajeynaya ka xisbi ahaan runtii dadaalkaygu ma yara gobolka waxaanu isku aragnaa dadkuna ay noo arkaan kulli shacbiga marxaati furi dooneen xisbiga ugu aktifsan gobolka Awdal xisaabta qaranka dadaalkana dhimayno inaan sii kordhino mooyaane kulli waxaan jeclaan lahaa warbixinteeda inaan inta ku soo ururiyo aad baad mahadsantiin bahda warbaahinta